Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaad saaxiibayaal, markastoo aad joogtaan. Waqti dheer kadib waxaan soo laabtay anigoo idin wado muuqaal aan la jarjari doonin, la toostoosin doonin, la qurqurxin doonin. Horta Ilaahay baa mahadsan oo YouTube igu soo celiyay. Waan iloobay xaqiiqdii. Muuqaalkan caawa waxaan ka xumaayo muuqaal aan diyaarin doono ma noqon doono. Waxaan rabaa muuqaal inaan duubo kadibna aan soo xareeyo, aan upload gareeyo. Cashar aan maanta bixinayo ayuu ku saabsan yahay, oo ku saabsan web application pen testing lab aan sameynaynay. Marka ardayda qayb ka mid ah ayaa codsadeen in la duubo, saas daraadeed anigana anuu ka faa'iideysanayo fursadaas aan jeclaystay inaan muuqaalkan sameeyo kadibna aan YouTube ku soo geliyo. Marka waxaan ka cudur daaranaa in aanan sameyn karin editing iyo toostoosin iyo waxaas. Waxaan rabaa toos in aan wixii labkaas quseeyay in aan sameyno kadibna aan ka gudubno oo aan aadno uploadingkii aan toos u guda galo. Muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay web application pen testing lab. Waxaan rabnaa web application inaan testing ku sameyno, gaar ahaan anagoo ujeedadeena ay tahay in aan website enumeration ku sameyno, ogaano inta subdomain uu leeyahay, kadibna ogaano subdomainskiisa maxaa live ah oo aan warbixin ama na siin karo macluumaad anaga u baahannahay, kadibna ku sameyn karno directory brute forcing ama path traversal. Kadibna aan usii gudbi doono haddii ay noo saamaxdo in aan sameyno brute forcing aan ku sameyno portaladiisa, gaar ahaan login portalskiisa. Marka waxaan rabnaa step by step in aan isku xeexijino. Anaga labkeena wuxuu ku saabsan yahay DAM vulnerable web application ama DVWA wax loo yaqaano. Waa local VM waaye. halkaan ku install gareysan yahay ka Linux keena. aan sameyno hal mar kan hoos iga dhig, dhinacaan iga dhig. Waxaa view custom library waa kana metasploitable kana isticmaalona iyo ka Linux. Marka metasploitable kan waa web server, waxaa gudihiis ku jiro web applicationo. mid ka mid ah web applicationadaas ayaa waxaa loo yaqaanaa DVWA. saas daraadeed waa local VM. waxa aan rabno in aan web application ahaan aan u isticmaalno testing ku sameyno, laakiin waxaa jiro website kale oo loogu talagalay in lagu sameeyo vulnerability assessment, sida website-kan oo kale vulnweb allaha. waa website oo intentionally vulnerable ah. waa vulnerable web application oo loogu talagalay in aad u isticmaali kartid wax walba oo testi ah si aad u ogaatid security breaches sida u dhacaan iyo waxyaabahaas oo dhan. waa website test loogu talagalay oo penetration testing u isticmaali karno. marka kan waa isticmaali doona as penetration testing inaan ku sameyno for educational purpose only. haddii qofka uu weynaado oo noqdo qof isku filanna wuxuu aadi karaa bug bounty programmeska website-yada ku jiraan. website-kan marka oo hadda anaga aan isticmaali doono vulnweb la dhaho, qaybta hore asaan isticmaali doonaa, kadibna local VM keena aadi doonaa. marka vulnwebkan oo kale waxaa ku jiro website kale sida test.html. waa subdomain, kan waa subdomain, kan waa subdomain. mid walbo technology-ga serverada ay leeyihiin, kan Apache server uu leeyahay, kan IIS Microsoft server uu leeyahay, and so on, iyo macluumaad ku saabsan. kuma dheeraan doono. marka waxaan rabaa marka haddii lacala qofka uu program bug bounty engagement program sax uu rabo inuu qaato, website-kan bug bounty-ga ayuu ka dooran karaa any website uu u baahan yahay, oo weliba haddii uu ka helo bounty ama vulnerability uu ku heli karo lacago aad u xoog badan. kasoo bilaabo hadda kan oo kale Octa la dhaho, from $100 ilaa $75,000 reward ama bonus oo lacageed. intaas ayuu heli doonaa haddii wax ay ayaga rabaan oo vulnerability ah ay doonayaan. haddii uu soo helo oo report uu kasoo diyaariyo oo si professional ah ayuu lacag uga sameyn karaa. way kala duwan yihiin mid walbo website walba ama
bangi shirkad walba waxa iyada ay rabto in loo sameeyo. Marka qofka haddii gudaha oo keliga uu siisiyo scope-ka wixii laga rabo waxaas oo dhan waa ogaanaysaa. Marka anaga ujeedkeena Mac Bounty program in hadda sameyno ma aha, waa test yar oo kooban, lab yar oo kooban aan sameyn rabnaa. Labka aan sameyn rabno muxuu yahay? Scope-keen iyo rule-keen waxa waaye anaga ujeedada u dambeysa horta waxaan ku sameyn rabnaa local VM keena. External target oo banaanka aan raadinayna ma jirto labkeenan. Marka sidoo kale DOS attack ma sameynayno, just waxaan focus ka saaraynaa methodology, yani oo anagoo wado hab isku xigo u sameyn doono labka hadduu ilaahay idmo. Habka u sameyn doono marka waxa ugu weyn waxa waaye goalkeena marka ugu horeeyo in aad fahamtid targetkaaga. Qofka markuu target uu doorto mathalan website oo kale, website-kan oo kale hadda targetkaaga uu yahay waa inaad fahamtaa yani siduu u dhisan yahay, qeybaha inta menu uu ka kooban yahay, luuqadda lagu dhisay, extension-ka gadaal ka jiro waa ogaatid ASP.NET miya, PHP miya, waxa inaad horta fahmi kartid waa inaad fahamtaa marka ugu horeeyo targetkaaga inaad fahamtid. Aniga hadda waxaan DVWA isticmaalona sooma, marka waa in maaragtay local ahaan. Tan labaad waa in aad raadisid ASN waxaa loola jeedaa wax walba oo asaga asset ah oo hoos yimaada inaad raadin kartid. Maaragtay website-ka asset waxaa la dhahaa wax walba oo domain-ka ama website-kaas hoos imaanayo, including subdomains-ka asaga uu leeyahay iyo wixii la halmaalo IPs wax walba. Step-ka saddexaad oo ah subdomain enumeration. Subdomain enumeration waxa waa inaan raadino hidden portals. Anaga ujeedada u dambeysa aan leenahay labkan oo loo socdo waxa waaye in aan sameyno wax loo yaqaano login portal brute forcing inaan sameynaa rabnaa. Marka si aan u helno login portal brute forcing, marka hore waa inaan portalada hidden-ka ah inaan soo helno waay, kadib ayaan ku sameyn karnaa brute forcing. Marka anagoo isku dayayno inaan helno admin portal ama internal path oo internal portal haddii sida aan ku heli karno inaan ku helno. Step 4 waxaan sameyn doonaa inaan live endpoint-yada oo uu leeyahay subdomain walbo inaan helno. Sidoo kale inaan focus ka saarno status code-yada 200, 302, 403 inaan xoog saarno. Status code wax kale maahan web application walbo wuxuu leeyahay request oo ka dhaxeeyo client-iga iyo server-ka. For example, client-iga waa browser-ka adiga isticmaalaysid oo PC-ga ku jiro, server-kana website-kaas meesha uu ku kaydsan yahay waay. Okay, kaba soo qaad website-ka meesha uu ku kaydsan yahay waa meesha marka adiga aad fariin website aa weydiisid ay aadayso fariintaada. Amazon oo kala gashay. Amazon aniga hadda waxaan ahay as a client. Amazon browser-keeda markaan sheygan aan hadda aan click siiyo, waxyaabahan caruurta loogu talagalay markaan click siiyo, meeshaas waxaa ka dhacayo codsi. See loo akrinaa marka status code-ka? Waxaa loo akrinaa for example wixii ku saabsan, let's use our Paint, MSF Paint, where is it? Okay, waxaa loo akrinaa tusaale ahaan waxaa loo akrinaa status code SC aan soo gaabino 200. macnaheed waxa waaye client-ya wuxuu dirsaday PC-gan, request-ya laga diray, server-a la aaday, server-kaas request-iga loo diray. Okay, request la dirsaday, server-kii wuxuu kusoo jawaabay 200. Okay, taasoo macnaheed uu yahay jawaabtii client-iga uu raadinayo wuu helay, waa 200. Okay, waxaa jiro sidoo kale 300 oo ayagana 1 iyo 2 iyo something like that ah. 300 waxaa loogu talagalay redirection, in client-iga markuu codsi oo dilbado codsigiisa meesha uu yaalo oo loo xabilay ama loo guuray. Mathalan website oo wax ka weydiiyaa jiro, page ama endpoint ama file ama document uu weydiistay ama login page oo asaga uu weydiiyay inuu aado uu rabo,
haddii lacala loogu soo jawaabo login pagekaaga mathalan tusaale ahaan wuxuu ahay amazon.com oo ahaa marka amazon.com uu garaaco serverkaas uu weydiiyo serverka wuxuu leeyahay waxaa loo wareejiyey websiteka amazon.net taasoo macnaheed ay tahay yani redirection in loo xawilo meesha ay macluumaadka ay yaaliin haddii marka 300 aan aragno macnaheed waxa waaye redirection waaye 400 jiro ayadana 403 404 wax saas camal jiro 400 aydan maxaa waaye macluumaad oo exist ah oo laakiin aan adiga lagu ogoleen in aad aragtid lagu diidan yahay like forbidden oo kale ina aragtid forbidden oo kale ina aragtid iyo wixii hal maalo waxaa jira status code 500 aa jiro 500 waxaa loo yaqaanaa server side error markuu error oo servers dharankiisa oo ka jiro oo macluumaadka intaa weydiisid kadib serverkii uusan kugu soo celinin macluumaadka filaysay uusan kugu soo celinin marka anaga waxaan focus ka saari doonaa 200 iyo 301 and 2 and 403 oo ah yani macluumaad lagu diidan yahay oo ina aragtid adiga arabtid maxaa waa kuwaas waxyaabaha secretko kala kamid ah meelaha admin portalada kamid ah meelaha ma aragtay authentication ina ku gashid ay daruuri tahay ayaa 403 lagu dhihi doonaa markaas doodii waxa ogaanaysaa meeshaas in wax macluumaad muhiim ay yaaliin oo lagu diidan yahay qaabka adigu ku heli lahayd ina falkiisa agashid adaa laga rabaa marka saddexdaas focus ka saari doonaa 500 status code ma fiirinayno 404 iyo waxaas ma fiirinayno kaliya waxaan xoog saari doonaa status code-kaas waxa loola jeedo qaybtan waa intaas yani waxa focus ka saari doonaa saddexdaana focus ka saari doonaa okay sidoo kale waxaa raadin doonaa qaybta shanaad wax la dhaho directory and file discovery hidden directories iyo fileska qarsoon raadin doonaa doo ilaa idmo ugu dambeyn waxaan isticmaali doonaa in aan login test ku sameyno anagoo PubSub isticmaali doono ugu dambeyntii marka intaasoo laabkeena ku saabsanaan doonaa doo ilaa idmo so aan bilaabana marka okay waxaan maleynaa hordhacaas uu noogu filan yahay waxaan isticmaali doonaa our VM kan naga xir so this is my wuxuu noqon doonaa local VM oo u dhigmo website-ka aan testi ku sameyn doono laakiin before inta aanan asaga isticmaalin waxaan isticmaali doonaa vulna webkii aan sheegnay IP kan oo wato waxa waaye 172.20.10.2 oo wataa by the way labadooda same network way ku wada jiraan kana wuxuu wataa ifconfig isagana .3 marka kan waa .3 kaasna waa .2 network adapterka ani hadda waxaan isticmaalayaa bridge hadaa rabtid waxaa isticmaali kartaa internal network whatever adiga oo aad isticmaali kartid laakiin for some reason bridge network adapterka ma ahan secure laakiin for the sake of this example ayaan u doortay in aan bridge ka dhigto adigana waxay arabtaa ka dhigan kartaa yani bridge waxaan ka wadaa in network adapterka like hadda fiiri AD gaan oo kaleete right click dheh setting markaa setting dhahdid network adapterkiisa waa kana yani network adapterka NAT ka dhigan kartaa host only ka dhigan kartaa in inta aad segment aad sameysido oo adiga markaas dhoodii aad ku dartid segmentation network adiga inta sameysid oo aad sameysid new LAN segmentation aad sameysid intaas dhan waa sameyn kartaa laakiin aan hadda waxaan isticmaalay bridge both of them waxay yihiin bridge ay yihiin marka la fiiriyo Metasploit iyo Linux-ka marka make sure in aad network adapterka iska hubisid waxa isticmaalaysid that's one thing why okay marka waxaan ka bilaabeynaa inaan website-keena suppose step 1 iyo 2 in aad soo fiirisay website-ka waa fiirisay ASN numberkoodii waa soo ogaatay ama haddii lacala website-ku uu weyn yahay oo sida Tesla oo kale ama website waa weynaa jiraan oo in aad qaybaha ASN-ka waxa u raadinayso waxa qeybaha website-kan ama domain-kan
uu leeyahay in aad macluumaad fiican ka haysid. That's why AS number u isticmaalaysaa. hadhoodiina waxaa isticmaali doontaa tool la dhaho AMAS oo kale. AMAS tool la dhahaa jiro. toolkan waxaa loogu talagalay in ASN number ama intelkoodii ama warbixintooda ASN kaas inaad ku raadisid. anaga marka focuska ma saareen, anaga waxaan focus ka saari doonaa in aan isticmaalno fiiri tusaale ahaan Carol dash I waxaan isticmaalnaa http wuxuu ahaa vulnweb.com. waxaan rabnaa inaan website-kan aan xoog saarno asaga aasi website ahaan aan isticmaalno subdomain finding and subdomain enumeration inaan ku sameeyno. Step number 1 subdomain enumeration aan ku sameeynaa. Therefore toolkeena ugu hore aan isticmaali doono waa subfinder. Okay, subfinder haddaa fiirisid dash help waxaa arki doontaa in uu leeyahay a lot of information like flags wax la dhaho. Okay, flags waxaa isticmaali doonaa dash d parameter oo domain name markaa rabtid, yani domainka aad rabtid inaad gelisid, source string, recursive, all, whatever, match, waxaan oo dhan waa optionska aad isticmaalaysid. marka anaga waxa hadda anaga wax naga gal waxa waaye subfinder dash d, kadibna waxaan isticmaalaynaa http kadibna waxaan leenahay vulnweb.com, kadibna waa save gareyneynaa, waxaan leenahay vuln.txt. okay, marka wuxuu noo soo saari doonaa how many subdomains ayuu leeyahay vulnweb. inta subdomain uu leeyahay ayuu noo soo saari doonaa. markuu noo soo saaro marka next step waxaan u guureynaa subdomainadan oo aan rabo inaan maaragtay ku shaqeeyo ama aan warbixin ka keeno meeqaha live ah. hadda muxuu soo helay 16 subdomain. haddaad dhahdid cat vuln magaca u bixinay vuln txt waxaa ku jiro website-yadan uu soo helay. test kii haddaa soo arkeen virus oo nagu cusub yahay oo noo qarsanaa haddaa aragnay. sidoo kale test asb restigan protocol waxaan dhan waa website-yo. marka kulligoodii ma wada shaqeynayaan mise qaybaa shaqeynayso? marka taasaan rabnaa inaan soo hubino. cat waxaa leedahay vuln.txt calaamada pipe aa leedahay, kadibna httpx iyo subfinder hadduusan kugu install garaysnaynin subfinder oo hadda aan isticmaalnay waxa ku install garayn kartaa commandigan subfinder apt install subfinder. okay, permission oo rabaa sudo apt install subfinder. okay, kali haddii uu kugu maaragtay install garaysnaynin wuu ku shubi doonaa oo maaragtay package-kii markaas u dambeeyay ayuu ku shubi doonaa. okay, ls sudo subfinder dash d vulnweb.com vuln2.txt. okay, now waxaan isticmaalaynaa httpx hadduusan kugu shubnaynin isagana waxaad uga shuban kartaa in aad imaadid halkan like araysid httpx project discovery github aa ugu shubin kartaa. halkaan imaanaysa kadib waa kuwan project discovery httpx kaligaasiine. then httpx muxuu ku siinaa marka toolkan waxaa loogu talagalay in uu iskan ku sameeyo subdomainska aad soo heshay hadda maxaa live ah maxaan live ahayn. okay, marka
waxaa u baahan tahay marka hore inaad ku shubatid qaybta hoose imaanaysa oo installationka. waxaa marka hore ku shubi doontaa go language, kadibna commandigan asoo koobiyeyne right click copy ama halkaan aad click siine, kadib halkaan oo la imaanaysa, kadib waxaa leedahay clear dheh halkaan, kadib waxaa leedahay control shift v, commandigi ayaad paste ku dhehaysaa, kadibna saas uu kugu shubi doonaa. okay, hadduu hore ugu jirin wuxuu ku leeyahay already uu ku install garaysnaa. then markaa ku shubtid wuxuu aadi doonaa halkaan ls waa kana go language, yani go halkaan uu aadi doonaa, folderkan go la dhahaya aadi, kadib waxaa ku jiro bin. okay, hadda kuma shubin yani package, laakiin bin aa ku arki doontaa. haddaad bin waxaa ku arki doontaa like hadda fiiri sudo su clear, meesha uu tago waa halkaan. okay bwd halkaan uu tagaa, waa kana go cd go bin httpx waa ka. marka haddaa rabtid saana uran gareyn kartaa httpx. haddii aa rabtidna in uu binaryga aado waxaa sameynaysaa cb copy aa leedahay httpx, kadibna waxaa aadine bin folderka. bin folder waa folder oo binary applicationada oo linuxka ay ka rangarooso, meesha laga rangareeyo ama ay kasoo kacaan ayaa binary folder la dhahaa ama bin folder. marka httpx-ka waxaa geynaysaa bin folder si uu adoo meel walba jooga u rangareyn kartid. laakiin haddaadan meesha geynin waxaa u baahantaa inaad bathkan imaadid oo meeshaas aa ka rangareysid, aa u baahnaan doontaa hadhoodii dambe. marka clear dheh, waxaa aadaa desktop. okay ls, then waxaan bilaabi doonaa hadda. waxaan haysanaa vuln, waxaan haysanaa cat vuln 2 subdomainadaan haysanaa. anagoo marka fiirinayno maxaa live ah, waxaan leenahay like http x -l oo listi ah, kadibna vuln 2 oo ah subdomainadii meeshay ku aruursan yihiin. httpx wuxuu leeyahay more flags, flagyadeeda haddaa fiirisid waa kana, ayadana waxay leedahay a lot of flags. wax naga quseeyo ayaan kasoo qaadan doonaa, waxa naga quseeyo waa arkeynaa. waxa aniga hadda aan isticmaalo aan halkan ku fiiri doona httpx -l oo listigeyga waa vuln 2, waxaan leeyahay -sc source code oo 200 300, yani inuu mid walbo meesha uu aadayo inaan arkaan rabaa. -td technology-ga uu isticmaalo website walbo inaan arkaan rabaa, si aan hadhoodii versionka websitekaas ama applicationkaas ama pluginkaas versionkiisa hadduu vulnerability leeyahay aan usii raadiyo. sidoo kale waxaan rabaa serverka isticmaalayaan. sidoo kale waxaan rabaa probe wuxuu ku siinayaa inuu kuu sheego inuu fail yahay iyo inuu success yahay, inuu gaaray. sidoo kale waxaan rabaa inaan haddii uu meel kale loo xawilay inaan redirection ku sameeyo, follow host redirection aan lahaa. redirection haddii lagu sameeyo inaan raaco. sidoo kale title flag aan rabaa in website walba titlekiisa ogaado. sidoo kale waxaan rabaa locationkiisa. okay, sidoo kale waxaan rabaa ip addresska uu leeyahay mid walbo. intaanu flagaan ka rabaa. kadibna waxaan leeyahay esave garee oo waxaan leeyahay vuln 3 ama vuln live, waxaan leeyahay live subdomains.txt. okay, marka hadda wuxuu sameynaa in uu ii baaro website-yada currently la isticmaali karo oo shaqeynayaan. okay, within second hadduu dhameyn doonaa. anaga marka muhiimadan maxaa waaye website-ka oo live-ka ah in aan waqti ku bixino oo aanan waqti ku bixinin midka dansan oo aanan shaqeyneynin. saas daraadeed waa in aan timekeena aan ku bixino website-yada na siinayaan macluumaad muhiim ah. maxaa ku xiga marka, what's next?
waxaa ku xigo in aan sameyno vuln 3 okay vuln subdomain live macluumaadkan fiiri okay macluumaad tiro badan aan helnay website-kan kuwaan hadda antivirus ASP hello way dansan yihiin yani haddaadan hadda ogaan lahayn waqti badanna gelin lahayd website aanan shaqeyneynin laakiin kan fiiri status code 200 macnaheed maxaa waaye wuu shaqeynayaa okay REST API ayaa u isticmaali kartaa haddii inaad ku testigareysid Apache server oo versionkiisaas yahay IP addresskiisa waa kana so on midkaan asagana saas oo kaleed midkaan fiiri waa test asp.vuln.com website-kan asagana waa 200 status code-kiisa wuxuu leeyahay Microsoft IS 8.5 oo aad vulnerability u leh Microsoft IS yani version 10 ka hadda vulnerability leh hadda kan waa 8.5 version aad u horeeyay oo dambeeyay waa old ah and so on so anaga marka waxaan noqoseeyo in aan focus ka saarno kuwa green ka ah ama haddii wax redirect ay ku jiraan hadda meeshan wax redirect kuma jiro waa fail iyo success oo kaliya kuwa hadda oo success ka ah waa kuwan kaba soo qaad mid ka mid ah kuwaan oo kale hadda waxa kanaan soo qaadanaynaa test php.com midkaan oo kaleete aan ognahay inuu success yahay kanaan soo qaadanaynaa waxaan leenahay right click copy selection waxaan iska tirtireynaa qaybtaan dhan maxaan sameyneynaa step 3 maxaa waaye now waxaan haysanaa website aan hubno inuu live yahay sidoo kaleetana aan xoogaa macluumaad ka hayno waxyaabaha teknolojiyad ahaan uu isticmaalayo aan hayno waxaan ku sameyneynaa marka directory brute forcing inaan ogaano website-kan muxuu qarinaa oo hidden endpoints iyo files iyo directories uu leeyahay anagoo ka faa'iideysanayno toolska banaanka yaalo sida tools la dhaho like FF oo kale FF waa tool loogu talagalay in laga faa'iideysto dash help FF wuxuu ku sameynaa brute forcing gaar ahaan directory brute forcing waa very fast way sidoo kale waxaa isticmaali kartaa Firx Buster tool la dhaho oo asagana loogu talagalay directory brute forcing okay dash help sidoo kale waxaa isticmaali kartaa dir search dash help mid walba waa fiirin kartaa okay asagana waa tool kale sidoo kale waxaa isticmaali kartaa also dirb tool la dhaho dirb hadda aan website kasana u geliyo oo just dirb kaliya aan dhaho directory brute forcing laga soo gaabiyay wuxuu ku sameynayaa scanning asagoo isticmaali doono word listigan user share dirb word lists common.txt word listigan uu isticmaala by default kadibna scanning uu kugu sameyn doonaa markuu dhameeyana wixii uu helay asaga sameyn doono marka 4612 words ama word lists oo passwords ama wax oo la xiriiro in lagu sameeyo brute forcing ayuu leeyahay laakiin waa culeys yahay aad u culus yahay marka maxaan isticmaali doonaa anaga waxaan isticmaali doonaa FF okay sorry FF waxaa leedahay dash u waa waxaa loogu talagalay in aad ku sameysid URL kadib waxaa isticmaali doontaa double quotation daartidna waa ka tegi kartaa double quotation-ka yani in uu separation kugu sameeyo so marka anaga wax aan raadinoona maxaa waaye waxaan raadinoonaa waxa halkan ka dambeeyo like here waxaan raadinoonaa yani subdomain waxa contents uu hayo contentskaas maxaa ula jeednaa marka waxaan ula jeednaa aan tusaale ahaan idin tusiyo okay contenteskan waxaa ula jeedaa like macluumaadkan tusaale waxaa joognaa hadda halkan kan waa Linux web application Linux web server Linux web server for example halkan waa rootka ama meesha u dambeyso uu file systemka oo Linux-ka uu leeyahay kadib waxa uu sii leeyahay directory hoos imaanayo rootkaas sida
var oo kale. var waxaa kale kusii jiro www, waxaa kusii jiro html. waxaa laga yaabaa adiga inaa websitekaas image uu leeyahay section imagekiisa inaad ku jirtid, like kan oo kale. kan hadda waa flat waaye, like waxaan dhahnaa Amazon oo kale. Amazon, okay, Amazon asaga kasoo qaadba tusaale ahaan. Amazon waxaa laga yaabaa inaa halkan ugu jirtid gift cards oo kaleet inaa ku jirtid laga yaabaa. gift cards marka intuu ka imaaday amazon.com waa main domainkii waay. fiiri kadibna folderkan gift cards, kadib gift cards waxaa ku jiro some other parameters kaleete iyo content kaleete. marka anaga waxaan rabnaa in aan ku sameyno maxaa uu leeyahay websitekan oo gudihiisa ku jiro, inaan soo baarno dhammaan wax walba oo laga heli karo oo content gudihiisa ku jiro. okay, see sameynayna marka waxaan sameynaynaa fuzzing wax la dhaho. fuzzing muxuu yahay? in aan dhahno noo raadi whatever oo ka dambeeyo main root-ka ama pathka oo file systemka meesha u dambeyso oo root-ka ah, wax alaal wixii ka dambeeyo uu leeyahay subdomainkan ama domainkan noo raadi. haye kadibna maxaan ku raadiyaa? waxaa leedahay waxaa isticmaashaa word list. waxaa leedahay word listigan noo isticmaal user share word list. waxaa isticmaaleynaa checklists, waxaa isticmaaleynaa like discovery, waxaa isticmaaleynaa web content. gaar ahaan web content waxaan kasii isticmaaleynaa okay, suppose like common directories oo kaleet inaa isticmaashid. common directories kana isticmaali doonaa. marka common directories kan waxaa ku raadineynaa fuzz. waxaa leedahay meeshan marka hadda gelinaysay wax la raadinayo waa wixii slashkan inta ka dambeeyo. waxaan rabnaa inaan inta fuzz ku sameyno. kanna waa word listiga isticmaalaysa meesha u dambeysa word listiga. waxaa sameynaysaa control shift minus, ujeedaa meesha u dambeyso word listiga waxaad ku dari doontaa ereyga fuzz oo marka hore u isticmaashay halkan. yani taasoo muxuu keyword uu ku fahmi doono meesha fuzzinka lagu sameynayo. okay, waxaan leenahay enter. okay, halkan fiiri waxa uu soo helay cj bin, wuxuu soo helay images, wuxuu soo helay admin, wuxuu soo helay pictures. okay, still wuu wadaa. brute forcingka markuu sameynayo wuxuu u baahan yahay time little bit yani f5 asaga ugu fudud markii la dhaho brute forcing hala sameeyo. anaga marka maxaan raadinoonaa? waxaan raadinoonaa login page, waxaan raadinoonaa admin documents ama admin portal, waxaan raadinoonaa wax walbo secret ah, wax walbo directory ah, wax walbo file ah, wax walbo oo anaga wax noo tari karo oo information hidden ah oo valuable noo ah. marka kuma dheeraanayo halkan. yani anaga da focuskeena waxa waaye in aan login portal helno ama sidoo kale inaan helno macluumaad sensitive ah. control c aan leeyahay. kaba soo qaatada adminkan oo kale haddaan dhaho copy, waxyaaba aan helno ayuu kamid yahay oo halkan aan imaano aan dhexdid. مثلا websitekeena muxuu ahaa control up arrow dheh, intaan soo koobiyey control selection ka imo control v, kadibna admin ah heshay soo maa enter dheh. waxyaaba ay helnay. so wuxuu ku leeyahay adminkan index of admin. markaa fiirskan back gadaal u laabo waay, kan sql sameeyo waay. yani halkan haddaa back dhahdid fiiri wuxuu ku geynaa halkan uu ku geynaa oo website-kii ah. laakiin haddaa meeshii hadda adminka haddaan ku laawatid meeshan waxaa ka muuqato inaa database sql aa sameyn kartid. yani creation file na leedahay halkan ka muuqato. so kan waa laabkeena khaaska ahaa waay. okay, halkan marka waxaad ka heli kartaa
so many waxyaabo kale fiiri CGI bin haddii aan joojin lahayn control C aanan hakin lahayn waxyaabo badan aan sii heli lahayn. laakiin waa inaan waxaan hadda anaga sameynin waxa waa inaad faham ka qaadasid mid walbo oo folder ah aa heshid ama file walbo extensionkiisa aa heshid inaad hadhoodii intaad soo koobiyeysid aad la aadi kartid browserka kadibna aad baari kartid. sometimes waxay noqon karaa folder, sometimes waxa hesho wuxuu noqon karaa file. for example login okay .asb wuxuu noqon karaa login.php oo ah file dhex yaalo folderkan admin la dhaho uu noqon karaa. as much as adiga inta aad raadin kartid deeply inaad raadisid waxa aad ka heli kartid portal domainkan. so waxaa jira marka qaabka recursive loogu sameeyo waa la badin karaa maaragtay waxaa raacdiin stepska uu leeyahay ff tusaale ahaan inaad sameysid like that recursion markaa rabtid oo kale inaad gudaha deeply a usii geshid oo kale waxaa isticmaali kartaa ereyga recursive away okay waa kana recursion depth in aad raadisid hadda depthigiisa 0 waay taasoo macnaheed ay tahay hal folder oo keliya raadinooya. laakiin haddaad ku dartid like this aad ahdid away copy kadibna asaan ahdid control shift v kadibna aad ahdid ilaa iyo 4 ama 5 si aad folderka kusii xigo ilaa fileka ugu dambeeya aadaysid gaar haddaad ahdid wuxuu aadi doonaa inuu deep scan kuugu sameeyo ayadoo waqtina inuu qaadato ay suurtagal ay tahay. sidoo kale halkan tusaalooyin fara badan hadda ku jiro waxaa sameyn kartaa in aad sameysid merge, sidoo kale waxaa sameyn kartaa filter and so on. halkaas uu gudbeynaa mowduucan ku saabsan brute force in lagu sameeyo endpoint ama directory ama file inaad raadisid, yani halkaas uu gudbeynaa. next maxaa waaye marka suppose in aad heshay login portal. okay login portalkaaga waa kana yani website-keena okay down login portalkaaga waa kana website-ka IP address-kiisa oo kaliya haddii aad gelisid wuxuu toos ku keeni doonaa page-kiisa oo dvwa page-kan ku keeni doonaa page-kan ku keeni doonaa okay sorry waa kana exploitable dvwa marka click siisid page-kan ku keeni doonaa. so anaga marka waxaan joognaa hadda login portal-kana haysanaa. so waxaan leenahay halkan si dvwa loo galo username-kiisa waa admin, password-kiisana waa password halkan aan lagu qoray. waxaan leedahay admin password okay halkaana joogtaa. dvwa levelkiisa hadda waa low, admin ahaan kusoo galnay. wuxuu leeyahay so many sections, brute force ku sameyn kartaa, command injection ku sameyn kartaa, file inclusion and so on. anaga waxaan rabnaa inaan ku sameyno brute force. okay ka soo qaad some login portal sidee brute force loogu sameeyaa. steps-ka aan soo marnay haddaa xasuustid wuxuu ahaa in aan marka hore domain main aan soo helno, kadibna subdomain ka raadino, kadibna maxaa live ah raadino, kadibna wixii live ka ahaa aan kasii raadino hidden directories iyo folders iyo portals, kadibna inaan assume gareyno ama aan helno login portal. login portalka markaa soo heshid kadibna brute force ku sameyno. laabkeena meeshaasuu daaran yahay. ugu dambeyn waxaan maraynaa hadda stepka ugu dambeeyay. marka si loo sameeyo brute forcing waxaa naga caawin doono tool la dhaho pubsud. okay pubsud waa tool loogu talagalay in lagu sameeyo so many things, waxyaabo badan oo kaa caawin karaa.
laakiin ujeedada hadda anaga laabkeenaan aan u isticmaali rabno waa brute forcing, laakiin waa tool loo isticmaalo proxy oo ujeedadiisa ay tahay in uu kala dhex galo clientiga iyo serverka, kadibna مثلا request ama codsi oo clientiga uu dirsaday to serverka inuu dhexda ka qabto proxy pubsud, kadibna adiga aad ku sameysid inaa repeaterka inta ula imaadid janji aad ku sameysid modification waxa ka bedeshid, kadibna aad serverka u dirtid codsigii adiga aad bedeshay, kadibna serverka markuu saas uu kaaga soo jawaabo. oo sidoo kale xitaa jawaabaha serverka aad wax ka bedeli kartid oo adigana aad sidaas aad ku noqotid man in the middle, sidaas aad ku noqotid. marka anaga hadda maanta ujeedada aan u isticmaal rabno pubsud waa in aan ku sameyno intruder inaan imaano, kadibna intruder oo naga caawiyo in aan brute force ku sameyno. that's waxa anaga aan rabno in aan sameyno, ujeedkeenaan maanta waa meeshaas. saas daraadeed sidee loo isticmaalaa pubsud marka ugu horeeyo oo qofku uu soo galo wuxuu arki doonaa like something dashboard oo saan camal ah. markaa saas u imaadid annaga waxaa naga quseeyo proxy inaa imaadid, gaar ahaan proxy in aad isku xirtid Firefox-kaaga oo browserka ah iyo pubsud inaad isku xirtid, kadibna wax alaala wixii as a client oo qofkan clientiga ah pubsud markii uu geliyo مثلا meeshaan markuu login admin uu geliyo oo meeshaan uu dhaho admin intan uu dhaho password like tusaale oo enter uu dhaho, kadib hadda meeshaan username iyo password oo qaldanaan gelinay right. anaga hadda ma naqaano, suppose waxaa taqaanaa oo keliya inuu passwordka ayaa userka inuu admin yahay, laakiin passwordka ma taqaanid. anaga waxaan rabnaa marka inaan traffican dhexda ka qabsano oo pubsud oo naga caawiyo markaan dhexda ka qabsano, kadibna intruderka u dirno, intruderkana uu noo sameeyo brute forcing asagoo ma aragtay sameyn doono in uu userkaas uu geliyo so many passwords inta anaga aan rabno inaan payload u sameyno oo password list inta aan gelino, listiga inta aan gelinayna brute force uu ku sameeyo backendigi. saas rabnaa ujeedada aan rabno waa sidaas. maxaan sameynaynaa marka? stepka ugu horeeya waxa waaye browserka iyo pubsud inaad isku xirtid. si isku xire waxaa jiro extension tool oo la dhaho Foxy proxy extension Firefox toolkanaad ku install gareysanaysaa browserkaaga marka ugu horeeyo waa kana oo midkaan toolkanaad soo degsanay oo ku install gareynay Irok Junk midkaan ay dhahaan waay anada add-on iyo malaha laakiin adiga add-on ku yeelan doona kaasaad gelin doontaa, kadibna halkaan uu soo gali doonaa. kadib markuu halkaan soo galo anada pubsud extension-kayga uu igu sameysan yahay, adi laakiin maxaa sameynay option aan leedahay, kadibna proxy aan leedahay, kadibna add aan leedahay, kadibna title u bixinaysaa halkaan tan waxaa leedahay pub oo kaleet. okay pub IP-giisa waxaa waaye 127 halkaan .0.0.1 portiga oo pubsud oo isticmaalan waxaa waaye 8080, kadibna save aa leedahay. kadib markuu save gareeyo kadib extensionka halkaan haddaa imaadid waa kana midka hadda aan kusoo darnay oo pub ahaa. si uu u shaqeeyo marka ugu horeysa adiga aad ku install gareysid wuxuu u baahnaan doonaa certificate u baahnaan doonaa. that certificate saa u heshid pubka marka hore shidaysaa, proxyga imaanaysaa, intercept on aa leedahay halkaan intercept on, meesha browserka kusoo laabanay waxaa garaacaysaa http://pubsud aa leedahay. markaa saas dhahdid certificate-kaana soo degsanaya. okay certificate-kaana soo degsanaysaa. markuu kuu soo dego certificate-ka anada certificate-ka hore igu install gareysana, laakiin certificate-ka soo dejinay kadib meeshaana imaanaysaa, kadib waxaa leedahay setting, kadib waxaa imaanaysaa privacy and security, kadibna meeshaan wax yar hoos soo deganay
certificate meel ku qoran tahay raadine way soo dhaaf ma dheera wax yar leh hoos loo soo degin jiray cookies password permissions certificate view certificate aa leedahay authority aa ku dhufanaya authority qaybtan authority ku qoran yahay aniga Babsuit uu igu jira certificate-kiisa laakiin adi hadhowdii waa soo gelinaysaa anada feeri Babsuit uu ku jira waa soo geliyay ina aragteen in kala shay kari laakiin waa soo geliyay laakiin adiga hadda waxaa dhihi doontaa import yaa dhehe aniga hore u soo geliyay waa kan hadda aan soo dejiyay hadda waaye kii Babsuit certificate kana waxaa leedahay okay kadibna laba meel oo ku soo bixi doonto aad tick saari doontid yani like okay marka hadda saan dhaadid kan oo kale open aa dhahday this certificate already installed mujeda as authority adi laba meel ku soo bixi doonto jag saar tick saar kadib okay dheh kadibna okay dheh certificate kaas maxaa waaye inuu Babsuit oo qumaati u shaqeeyo oo san ka shakinin browserka ay ka caawinaysaa intaas marka maxaa u sameeynaa inaan browserka iyo Babsuit aan isku xirno oo mar walba oo aan browserka u baahdo in macluumaadkiisa uu igu soo xiri karo Babsuit laana Babsuit waa meeshii wax lagu qaban lahaa lagu kajgareyn lahaa browserkan waa cidii codsiga dirsan lahayd waaye oo hadda back-endiga ama serverka ka codsan lahayd in uu u gudbiyo okay dhaxda inaan ka qabsadaan rabnaa browserkan wixii oo lagu maaragtay lagu qoro ama wixii oo codsi oo dirsado yaa isku xiraayo extension-kan isku xiraayo extension-kan ayaa isku xiraayo extension-ka marka ka dhameystidna disable aa leedahay marka u baahan tahayna Bab click siinaysaa kadibna wuxuu kugu xiraa Bab IP address-ka inta ay gelinay marka halkaan uu ku jiraa marka fiirisid proxy-ga qaybtan setting proxy marka imaadid IP address-ku uu leeyahay waa kana oo aan gelinay meeshaan ka keenay marka wixii hadda ka dambeeyay marka muxuu sameynaa marka intercept on aad dhahdid macnaheed maxaa waaye wax walbo dalab ah aad dhiibatid codsatid مثلا caasimada.com oo kale aad dhahday wuu iska wareeganaa sida inuu codsiga uu maqan yahay oo kale laakiin marka inta imaadid waxa u jeedaa waa kana caasimada.com haddii hadda aan dhaho forward haddaan dhaho fiiri waa isbarbar dhigeynaa like okay fiiri halkaan day marka hadda forward dhahdid wareegii wuu socdaa forward aan leenahay forward caasimada markaas uu gudbi doonaa codsigii marka aad fasaxdid oo caasimada uu shidmi doonaa macnaha yani browserka ama client uu shidmi doonaa anaga marka maxaan rabnaa codsiga inaan dhaxda ka galno oo sidaas anaga dhowda ku sameeyno haddii traffic-ga aan drop dhaho مثلا meesha uu socday ma gaarayo drop all no dhigi kartaa hal mar sidoo kale forward all hal mar waa dhigi kartaa labadaba waa sameyn kartaa marka anaga ujeedkeena marka maxaa waaye in aan traffic-gan dhaxda ka qabsano maxaa sameynaynaa marka saan brute forcing u sameyno waxaan sameynaynaa anagoo interception-ka uu on uu noo shidan yahay kan like aan clear ka dhigno مثلا history-ga aan clear ka dhigaynaa marka hore okay sidoo kale interception waxaan leenahay drop all waa no clear waxaan sameynaynaa admin waxaan leenahay مثلا tusaale ahaan waxaan leenahay tusaale aan password gelinaynaa enter aa dhahday okay enter markaa dhahdid waxaa lagaa rabaa login markaa saas aa click u siisid okay let's and refresh ku sameyno page-ka
وكنا مركا refresh ku sameynay يعني halka marka fees interception on weli still remember wareegan waya kan waa kii hore ugu jiray waaye. Let's sameyno drop all kadibna aan kan new page oo cusub aan ka bilaawno laakiin kana maya baabuu saaran yahay. Okay, forward all waxaan rabaa new page oo cusub. Okay, like brute force forward all waa kana new page oo cusub. Okay, new page waxaan sameynaynaa admin password kan waxaan ka dhigaynaa like Cabdullaahi. Okay, enter dhahday isla markii muxuu soo qabtay wixii adiga codsigaaga ahaa. Holkan hoos hada ka fiiri username waa admin, passwordna waa Cabdullaahi. Si aad u sameysid marka brute forcing-ka history-ga imaanaysa midka u dambeeyay hadda oo parameter-ka watay waa kana kan waaye. hadaa rabtid dhinacaan inspector-ka inaa imaadid halkan hadaa furtid waa arki kartaa waxaa sameysay get method isticmaashay http kadibna pathkiisa waa kana parameter-ka la isticmaalay username oo admin ah, password oo Cabdullaahi ah, waxyaabo la isticmaalay waaye. marka anaga waxaan u socon maxaa waaye waxaan rabnaa inaan Cabdullaahigan ku sameyno brute forcing since userka waan naqaana laakiin passwordka ma naqaano. waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaa u diraysaa intruderka waa kan ku xiga proxy-ga kaasaa imaanaysaa. halkan waa meesha laga sameeyo password attacking meesha laga sameeyo halkan waa. Then markaa sameysid fiiri Cabdullaahiga oo ah meesha aad ku sameyn rabtid attack-ga ayaa meeshaan waa meesha injection-ka aad ku sameyn rabtid. meeshaan waxaa ku leedahay control ama qaybta double click kadibna waxaa leedahay add markaa dhahid macneed maxaa waaye halkaan aan rabaa inaan ku sameeyo brute forcing intii ugu sameeyo waaye. Okay, nooca attack aan sameyn doono waa sniper attack. haddii username-ka iyo password-ka labadoodiiba aad hadhoodiisaan dhihi doontid مثلا add intan attack aan rabaa inaan ku sameeyo intan attack user-kana ma aqaani password-kana ma aqaani hadaa dhehaysid hadhoodii waxaa dooran doontaa cluster bomb. laakiin anaga hadda waxaan assume gareynaynaa in aan naqaano userka as admin laakiin aanan password-ka aanan garanaynin. saas daraadeed waxaan isticmaalaynaa sniper. halkan oo payload-ka u imaaw payload-ka markaa imaadid meeshaan hadda payload-ka ku dooran resource setting qaybta payload-ka markaa dooratid waxaad soo gelin doontaa hadda load waxaad soo gelin doontaa wixii adiga password list ah haystid. anaga hadda password list midkaana haysanaa midkaan waxaa noogu jiro ilaa iyo 4 password oo keliya. sababta u dooranayna waxa waaye in uusan gaarin account log out inuusan ku dhicin oo 5 password iyo wixii ka badan in aan password ku celcelinin user-ka si uusan maaragtay account disable uusan nooga dhicin ama account log out uusan ugu dhicin. marka waa 4 password aan isleenahay ugu macquulsan waa ka badin kartaa laakiin aan soo qaadanay. then marka aan u set up gareyno waxaan leenahay start attack. Okay, kadibna waxaa halkan ka muuqdo inuu attack sameeyay oo userkii admin ah wuxuu ku dayay mar 1 2 3 mar password oo sidaan ah mar admin. marka la fiiriyo midka saxda ah kuwan waa 4920 length-ga laga fiiriyaa. midka kaliya oo aad uga duwan waa 4985 kuwa isku eg yihiin length-gooda ma ahayn midka kale ayuu password-ka yahay mostly. si kale ka sahlan oo lagu ogaan karo ma jira waa jira. for example hadaad browser-ka imaadid browser-ka marka password qaldan aad gelisid oo aad hadda fiiri proxy-ga aad imaadid مثلا halkan proxy-ga aad imaadid oo aad forward dhahdid all kadib halkan waxaa arki doontaa username iyo password incorrect. haddaad section-kan aad copy soo dhahdid qaybtan incorrect-ga ah oo aad la imaad intruder-ka oo kadibna intruder-ka halkan intruder-ka aad setting-giis la imaadid. setting wuxuu leeyahay qayb la dhaho grab and match. qaybtan grab and match-ka haddaa clear dhahno
oo meeshii hadda errorka wixii aan soo helno ku baasti gareyno aad dhahno waxay la macno tahay waxa ii raadisaa meel walba oo user name incorrect iyo password incorrect ii raadi marka inta incorrectiga maahine inta kale ayaa passwordka saxda noqonaya marka midka aan incorrectiga ahayn ayaad u assume gareynaysaa inuu yahay midka saxda ah adiga marka maxaa ku raadinay waxaa leedahay midka incorrectiga ii raadi yani markaa fiirisid hadda waa trick la isticmaalo oo wixii incorrectiga haddaa heshid waxaan incorrectiga ahayn muxuu noqonaa correctiga noqonaa marka saas kuwan halka macneed waxa waaye waa incorrect midkaan halka ahaynna waa correct saas daraadeed si u hubisid inuu asaga yahay halkaan imaa waxaa isticmaalaysaa marka hore kana iska xire waa ka dhamaysatay discard proxy-ga imaanaysaa proxy interceptiga waa daminaysaa off aa leedahay passwordka maadaama aa ogtahay danta aleed waa ka dhamaysatay hadda waxaa leedahay admin password waxa soo heshay hadda enter dhahdid wuxuu ku leeyahay welcome to password protected area admin macneed oo ah waa ku guuleysatay in aad passwordkii saxda ahaa aad soo heshid waxaa sameyn karnaa marka sida aan hadda sida aan u isticmaalnay password oo kale ayaan waxaan u isticmaali karnaa toolkeeni f5 ahaa see loo isticmaalaa marka f5 waxaa loo isticmaalaa historyga imaanaysaa fiiri usernamekii iyo passwordkii ay gelisay kan waa keenii saxda ahaa waaye kii ka horeeyey oo qaldanaa ayaa waxaa leedahay ii save gareey okay ayagu oo lagu save gareyna waxaa leedahay maalan tusaale ahaan requestigii ugu horeeyay aan dirno ahaa ama waxaa leedahay codsi ama request la iska leeyahay request.txt file oo request.txt igu save gareeyaa leedahay wuxuu kugu save gareeyay desktopkaaga okay kan waa iska xireysaa isaga dhan naga xir maadaama aan ka dhameysanay okay waxaa sameyneynaa haddaad dhahdid ls waxaa fiirinaysaa waxaa haystaa file oo request.txt ah filekan haddaad dhahdid cat request.txt waxaa ku jiro headerkii macluumaadkii codsiga uu dirsaday oo dhan oo dhameystiran get methodada isticmaalnay dvwa vulnerabilities brute force username oo la dhaho admin password oo la dhaho cabdullaahi anaga maxaa rabnaa marka adminka waa naqaanaa laakiin passwordka ma naqaano waxaa sameyneynaa intay fuzz ku sameynaysaa passwordka cabdullaahi waxaa ku bedelinaynaa ereyga keywordka uu faf isticmaali jiray waxaa leenahay nano waxaa leenahay request.txt kadibna waxaa imaanaysaa ereyga cabdullaahi waxaa ku bedelanaysaa fuzz okay control o save control x clear okay hadda maxaa sameyneynaa f5 dash request okay horaan u sameeyey laabkan request.txt oo waxaan haysana ah request oo protocolka aan isticmaalayno uu yahay protocol http word listina waxaan isticmaalaynaa word listiga oo hadda aniga aan haysto okay word listiga hadda aniga aan haysto waa pass.txt oo horaan u sameynay word list kaleeta laakiin aad isticmaali kartidaa jiro like inaad dhahdid user share word lists like dir common txt kan waa isticmaali kartaa kadib inta imaadid kadib aad dhahdid waxaa fuzz igu sameysaa word listiga kadib aad sidaan dhahdid okay fiiri waxaa halkan ka muuqdo yani wuxuu kusoo celcelinayaa status code oo 200 ah waxaana word list ah dhan uu ku tijaabinayo laakiin san best practice ma ahan log out ku dhacayo laakiin waxaan rabaa inaan idin tusiyo in word list oo badan inaad ku dayi kartid since aniga word listigeen uu ahaa 4 xabo oo kaliya marka meesha markaa fiirisid fiiri status code isma bedelo size kana waa 4572 marka macnaheed maxaa waaye intaan oo dhan wax walbo size kan macnaheed waxa way password kaas ma ah
control C haddaan dhahno oo filter ku sameeyo aan dhaho filter size ku sameey size-ka waxaa filter ku sameysa ha itusinin 400 kan iga qari 472 waxaan ahayn itusi waxaan ahayn uu ku raadin doonaa si uu overwhelming-ka uu kaaga yaraado ma fahanti marka markuu ugu dambeyn uu raadiyo uu ku soo saari doonaa password-ka oo saxda ah wax aan ahayn kuwii hadda aan soo aragnay okay let's wait and see some maaragtay time aan siino wuxuu ku dayoyaa 4617 password list inuu ku raadiyo hadda 2000 uu dhameeyay 2000 to go okay marka la fiiriyo magaciisa muxuu ahaa passwordka kanaad ka fudud hadda markaa fiirisid muxuu soo helay document password program files report list laakiin mar walba waxa ogaataa kuwaan maxay ka siman yihiin numberka okay control C aad dhihi kartaa waxaa sidoo kale filter ku sameysaa comma aad leedahay 4522 ayadan iga saara dhehe okay uu soo bilaabi doonaa laakiin ayadan intaas ceebtaas uu leeyahay laakiin by the way hadda waa ogaanay inuu password uu soo saaray maadaama passwordka hore aan ugu soo aragnay inuu password yahay intan hadda uu noo soo saaray passwordka markuu 2000 iyo jajab uu marayay uu soo saaray adi marka saadan hadda ugu wareerin filter amar walba ku sii sameynaysaa rabtaa waxa uu correctiga ah inuu ku soo saaro macna hadda haddaan sugnaado 4000 sidoo ku dhameeyaan soo sugeynaa 2000 iyo jajab markuu marayay haday password uu noo soo saaray meelahan hadda uu soo saari doona 2000 iyo xoogaa marooya okay 2500 2600 qasab waa inuu had soo saaro waa ka hadda uu soo saaray waa passwordka saxda ah marka maxaa ku raadinay filter ku sameeyna kuwii garbage-ka ahaa oo dhan waa ka saarnay yani waxaa ogaanay inuu passwordkeena uu asaga yahay 4000 had almost uu dhameeyay 4014 done jeda 4600 sorry 4600 marka passwordka oo badan yahay little bit time u qaadana marka maxaa ogaatay the correct password waa password now waxaa la imaanaysaa browserkaaga waxaa leedahay admin waa qaan inuu admin yahay password done that's all marka insha Allah ta'ala labkan waa lab just aan orod ku sameeyay waxaan rabnaa oo kaliya inaan methodology ama maaragtay fahamka qaadano sida loo sameynayo pen testing gaar ahaan markii ay noqoto login brute forcing markaa sameynaysid si ay loginkaas ku heshay horta in hadii lacal idea meesha ka keeni karno in domainka aan helno subdomain aan enumeration ku sameyno subdomain markaan helno which subdomain ayaa live ah inaan soo baarno anoo httpx isticmaaleyno kadib aan kasii raadino subdomainka live ka ahaa directory brute force inaan ku sameyno anagoo f5 isticmaaleyno ama forex browser kadib ama dir search ama dir whatever directory brute forcing kaas waxyaabo badan oo content is very important ah ka heli doontaa wixii markaas ka dambeeyana ina login portalada ay heshay inaad ku sameyn kartid brute forcing scenario-gaas iyo methodology-gaas iyo path-kaas inaan raacno ayuu labkan muhiimadiisa u ahaa marka insha Allah ta'ala from now on waxaan sameyn doonaa lab oo series isku xiga ah nidaamsan si fiican loo soo diyaariyay aad aan u dheereen sida kan oo kale inta aan ku kulmi doono next time waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabad geliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.